Taariikhda dalka Jarmalka. Dalka Jarmalka waxaa loo yaqaanaa Jamhuuriyadda Federaalka Jarmalka, waxa uuna ku yaalaa qaaradda Yurub, waxa uuna xuduud la leeyahay dalalka Denmark, Poland, Jamhuuriyadda Jeega, Austria, Faransiiska, Luxembourg, Belgiumka iyo Switzerland. Dalkan aanu ka hadlayno ee Jarmalka oo soo maray xaalado iyo maamulo kala duwan, si weynna ugu lug lahaa dagaalkii koowaad ee dunida iyo kii labaad, waxaana uu dhowr mar noqday labo dal, waxaana ugu dambeysay markii uu dhammaaday dagaalkii labaad ee dunida. Jarmalku laba dal ayuu noqday, waxaana loo yaqaanay Jarmalkii Bari iyo Jarmalkii Galbeed. 3 bishii Oktoobar sanadkii 1990 ayay midoobeen labadii Jarmal, waxaana la aasaasay dowladda hadda jirta ee Jarmalka. Hogaamiyayaal la xasuusto ayaa dalka soo maray, waxaana ka mid ahaa hogaamiyihii la oran jiray Adolf Hitler, oo sidoo kale lagu xasuusto xasuuqii uu Yuhuudda u geystay ee Holocaust loo bixiyay. Xasuuqaas waxaa la aaminsan yahay in lagu dilay ilaa 6 milyan oo Yuhuud ah oo Yurub ku noolaa. Caasimadda dalka waxaa la yiraahdaa Berlin, oo sidoo kale ah magaalada dalka ugu weyn. Calanka dalkana waxa uu ka kooban yahay midabada madow, guduud ama casaan iyo hurdi ama jaalle oo siman. Luqadda dalkan looga hadlana waxaa la yiraahdaa af Jarmal. Tirada dadka Jarmalka waxaa lagu qiyaasaa 82 milyan oo qof. Lacagta dalkan laga isticmaalana waa lacagta Yurub ee Yuuroga. Gaadiidkuna waxa ay isku dhaafaan marka dalkaasi la joogo dhanka midig. Dalkan waxaa loo aqoonsan yahay dalka Yurub ugu dadka badan iyo dalka labaad ee qaxootiga ugu badan soo dhaweeya kuna nool yihiin. Sidoo kale waa dalka afaraad ee ugu shaqaalaha badan dunida, iyo dalka 5aad ee ugu warshadaha badan, iyo dalka 3aad ee waxa ugu badan dibadda u dhoofiya kalena soo dega. Waxa uu sidoo kale xubin ka yahay Qaramada Midoobay, Ururka Midowga Yurub, Gaashaanbuurta NATO, ururada dhaqaalaha ku hormaray ee G7 iyo G8, ururka wadamada horumaray iyo ururo kale oo caalami ah. Dalkan oo ay ka jirto dowlad federaal ah oo madaxdeeda la soo doorto, waxaa qofka ugu sarreeya loo yaqaanaa Chancellor. Dalkan waxa uu sidoo kale ka mid yahay 7 dal ee loogu dalxiis tagista badan yahay adduunka oo dhan. Waxaa la qiyaasay in sanadkii 2012 dalkaasi meelaha loo dalxiis tago ay booqdeen dad tiradooda lagu qiyaasay 407 milyan oo ruux. Jarmalka oo aan ka hadlayno waxa uu ka mid yahay dalalka Yurub ee soo dhaweeya dadka magangaldoonka ah, waxaana sanadkii 2016 dalkaasi iska soo dhiibtay qiyaastii 10 milyan oo qof. Dadka soo galootiga ah badankood waxaa la dejiyaa xeryo looga sameeyo dhulka miyiga ah ee galbeedka dalkaasi ku yaala. Xagga diimaha haddaanu eegno, dowladda Jarmalku waxa ay aaminsan tahay in dadka dalkaasi ugu badan Masiixiyiin yihiin, Islaamkuna waa diinta labaad ee ay dadka dalkaasi haystaan. Warbixin soo baxday sanadkii 2011 ayaa sheegaysa in ku dhawaad 4 milyan oo qof oo Muslimiin ah ay ku nool yihiin dalkan. Dalkan aanu ka hadlayno ee Jarmalka waxaa ku yaala masjidka Cologne la yiraahdo, oo loo aqoonsan yahay in uu ka mid yahay masaajidda Yurub oo dhan ugu weyn. Masjidkan oo ay dhiseen hay-ado Islaam ah waxa uu qaadaa ilaa 4,000 oo qof.
laga soo bilaabo tan iyo sanadkii 1970 ayaa la aaminsan yahay in Islaamku ku soo badanayo waddanka Jarmalka. Xagga ciyaarahana, dalkan waxaa aad looga xiiseeyaa kubadda cagta. Horyaalka dalkaasi laga ciyaaro ee Bundesliga loo yaqaanana aad ayaa looga xiiseeyaa dunida. Xulka kubadda cagta Jarmalka waxa ay ku guuleysteen koobka adduunka 4 jeer oo kala ah 1954, 1974, 1990 iyo 2014.